السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كيغا مايا بيوتي هداد كو عصب تاي channel كيغا فضن هايغي لوغن لايك كومنت اي سبسكرايب كا welcome كسو دوادا channel كيغا هداد عصب تاي واي داد بدن انتا نيغا مغنا داد بدن با اي سبسكرايب جري او كو عصب channel كيغا لكن ومقنا ان بدن فيديو قاعدة داوتين ان شاء الله وان explain جراني وان يشاقي حقا كو مغنا and so daawasho wacan insha Allah i subscribe gareeya i like gareeya iyo comment iga bixiya what you think videoga aad doonaysid next inaan sameeyo xaga comment igu soo sheega wayno wiiga dambe insha Allah assalaamu calaykum daawasho wacanna in badan waa niga maqnaa probably 6 bilood baan u malaynaya waa maqnaa subxaanallah timeka horta saas u ordaa and marka waxaan doonaynaa makeupkeena galo on the niche sheego waxaan ku maqnaa waxaan qabanayay waxa igu cusub in yar baan yar zoom gareyn doonaa sidaad u aragtiin makeupka aan maanta sameynayo waa neutral you know new makeup I think wax kasta aan maanta isticmaalo waa cusayb intaasaan iga maqnaa guys waa kaas and so waxaan ku bilaabayaa bal skincare although saaka ayaan marsaday skincarekeyga laakiin waan ku celin doonaa waxaan marsanayaa Charlotte Tilbury kan waxa weeyaan Charlotte Tilbury magic cream so arkisiinba waa magic cream wax kastana dee aan maanta marsanayo hoosta linkiga aan igu soo wada qori doonaa sa inay kuna iibsatiin markaa waan bilaabi doonaa to be honest magic cream kan ma jecli in badan inaan marsado in yar un baan jecel yahay inaan wajigayga yar mariyo not a lot marka waa ka faasliinteeda yar baan afka furuuraha yar marinayaa waa kaas waxaan ku xigsiinayaa waa serumka so waxaan ku xigsiinayaa magic serum waa ka serum weeyaan by Charlotte Tilbury horta alaabtan waan og inuu yar qaali yahay laakiin waa alaab like amazing markii aan bilaabay inaan marsado in yar baan isticmaalaya again ma doon in badan inaan isticmaalo markaan bilaabay aan marsaday makeupkayga skinkayga horta alhamdulillah is getting better aad I don't know inaa arkaysin but it's getting better waxaan isticmaalay productyaal badan oo cusub imika insha Allah vlog baan sameyn doonaa channelkayga kale Maya Talks just you know waxa cusub af English baan ku hadli doonaa cause channelkaas waxa weeyaan in English kan unbaa Somali aan ku hadlaa waan arkayna commentska waxaa weydiinayay waxaa fiicnaan lahayd you know YouTube videogan haddaad af English ku hadlisid and I do have a channel so I have another channel and af English ku hadlo kan I specifically waxaan ku dedicate garanaya inaan af Somali ku hadlo and waxaan marsanaya makeup Fenty beauty to be honest anu waxaan u isticmaalaa corrector like more bright fix eye brightener I don't know why uu yahay it is a corrector anyways aniga corrector bay tahay so tashishka oo dan aan haysto ayaan dul marinayaa tashishkii wallahi alxamdulillah ugu yaraadeen inta yare dee wajiga dark yar ana waan yar dul marinayaa uu tirtirmay laakiin waxa weeyaan Hollywood glow baan u malanaya I don't know anyways wajigayga kan baa wajigaagaba aad buu u qurxinayaa especially underneath makeupka so you know meelahan aan u marinayo haddaad marisiin waa waxaan ku yidhi makeupku aad buu usoo baxayaa aad qurux buu nigu soo baxayaa so waa kaas and then to be honest kanan haddana dul marinaya waayo usually brush kan baan mariyaa intaasoo dee bilood inaan iga maqnaado waa yar dee cajiib laakiin waxaan bilaabay inaan iska maqnaado waxaan ku jiray transition period wax la yiraahdo foundationka amaanta marsan waxa weeyaan waa baan cusub aan Selfridges haddaad reer UK tihiin tugaanka la yiraahdo Selfridges ayaan ka arkay brandkan UOMA ayaa la dhahaa xagga you know linkyada hoostaan igu soo qori doona laakiin saas uu eegyahay
and waxa iskale naag madow, so waxa weyn black owned brand, and waxaan ku yiri productyaasha oo dhan aan ka iibsaday waxa weeyaan 10 literally. So from there imika every time waan isticmaalaa brandka, marka maanta waan isticmaali doonaa. So waa foundation kani, waa foundation biyo ah. Okay, waa kaas. Imika brushka ayaan soo qaadan doonaa san u blend gareeyo. I know wuxuu yara ekaan doonaa very weird, laakiin waan iska sugnaa. I have to wait for the process. Uu isbedelaa colorka shadeku hadhowta uu isbedelaa. So saasaan ugu blend garanayaa. And marka transition baan ku jiray, transition oo ah xagga shaqada ah, and shaqadii alxamdulillah waa la promote garay. So waxay igu ahayd wax cusub. I feel like markasta markaan shaqo cusub helo time bay igu yara qaadataa inaan settling iyo fara settling inaad baratid wax cusub. Marka waxaad doonaysaa inaad ahaatid 10 out of 10 inaad si fiican u shaqaysatid. Waa kaas foundationkii oo dhan si fiican baa marka wajiga ugu blend gariyay. blend markasta waan ka hadlaa blend ilaa gacanta ku xanuunayso waa inaad blend garaysid. imikana concealer baan marsanaya. Concealerka aan marsan waxa weeyaan Too Faced, wajigan bal isaga dufan gaaray. Too Faced Boldness Way Concealer waa kan, markas waan isticmaalaa kan. Warm Sand baan maanta isticmaalayaa. runtii Too Faced waxaa la yiri in badan buu go'ay concealerku, in badan buu iska maqnaa. They relaunched it mar doobiya haddana, laakiin alxamdulillah waan haystay in badan maan u baahnayn inaan sugo. So maadaama makeup in badan marsanba waa kaas. So sidii awal baan marinayaa koonaha. So yeah, saan yiriba shaqo cusub alxamdulillah. And then markii shaqadiina waxaan tagay Djibouti. Markaan tagay wadankii hooyo ayaan tagay, waxaan ku maqnaa malaha week baan ku maqnaa. And then from there waxay ka bilaamatay inaan more concentrated ku ahaado TikTok, inaan makeup videos u sameeyo TikTok. I don't know what it was, laakiin TikTok baan aad uga helay on makeup videoskayga xaggaasaan geeyay. sidaan u jeclaa inaan YouTubekayga ku noqdo iyo sidaan u kari waayay waxaan yaran jiray horta bal waxaad adu comfortable ku tihid yaa fiican inaad samaysid. brusheskaan isticmaalin waxa weeyaan Morphe. markas waan sheegaa hoostaan igu soo qori doonaa makeup brusheska aan maanta isticmaalay. Zoefa ayaan isticmaalayaa iyo Morphe X makeup Ariel brushes. So brushesku waa brusheskan aad u jecel yahay. marka waan blend gareyn doonaa soo arkaysiinba. so waa kaas walaahi. waxaan aad u jeclaaday TikTok inaan create gareey content. and then imikana saan aad u rabay inaan sameeyo content for YouTube iyo sidaan u kari waayay. markas waxaan yarnay waan sameyn laakiin ma fiicno inaad isku force garaysid haddaad comfortable ahayn. marka alxamdulillah timekayga waan iska qaatay as much as aan iga fikirayay, as much as aan lahaa oh my god waa inaan YouTube video sameeyo. haddana waxaan iska believe garayay markuu ilaahay ugu talagalo waan sameyn doona. marka waa imika insha allahna waxaan edit gareyn doona caawa. aad baan u doonay inaan videogan aragtiin maanta, aad baan u doonayaa. haddii noqon weydana caawa beri un baan soo saaray maadaamaan time iska yarahayo alxamdulillah. marka wallaahi noloshu waa sidaas marna aad ba busy u noqonaysaa, marna waa inaad prioritieskana hagaajisid waxaa ka horeeya. so YouTubeku to be honest priorityga muu ahayn, waayo noloshayda also 26 baan noqday. May birthdaygu ahaa, marka 26 baan noqday bishii hore alxamdulillah. wallaahi just reflecting reflecting waa kaas.
insha allah waxaan doonayaa in aan soo geliyo Djibouti vlogayga. weli maan edit gareen. Djibouti baan tegay, Belgium baan tegay, Dubai baan tegay, meelo badan baan tegay, laakiin maan dee edit gareen oo dee maan soo gelin. Marka insha allah maadaamaan imika kusoo noqday YouTube, waan haddaad doonaysiin waan samayn doonaa. haddaad doonayna dee channelkayga kale dadku way doonayaan, so xagga commentka iisoo qoraa baad doonaysiin inaad aragtiin mise ma doonaysiin. Travel vlog ay ingiriisku dhahaan. Travel vlog waan ii samayn karaa. Travel vlog waan sameeyey, laakiin waan edit garayn karaa, waan tusi karaa. Although waxaan sameynaa TikTok videos, so TikTok videos kana waan soo gelin doonaa sida shortka, sida TikTok videos baan xaggan soo gelin insha allah. So daawatiin. Waxaan doonayaa imika inaan dee mar kastaba videoyaasheeda soo geliyo on dee ku noqono routinekeeni every weekend ayaan doonayaa. Marka xagga commentskana igu soo qoro maxaad doonaysiin inaad aragtiin. videoyaashee baan ii sameeyaa imika. waan yar blend garan, waxaan ku blend garanayaa beauty blenderkayga. hareeraha koonaha ayaan sidaa ugu blend garanayaa, soo arkaysiinba. waayo haddii kale wuxuu leeyahay harsh lines, marka harsh lineska ayaan baabiinanaa. waxaan doonayaa in aan isticmaalo brandkaan ii sheegay, I can't pronounce it. waxaa la dhahaa UOMA, I don't know, but anyways concealerkan ayaan isticmaalayaa, and waa very luxe. aad baan uga helay. I don't know, maybe in yar baan isticmaalay, and then beauty blenderka ayaan, what was that, koonaha ayaan yar marin doonaa, and then xaggan baan yar marin doonaa, and then here siduu brighter in yar noqdo, cause I love, anigu horta waan ka helaa bright and eye. And haddana waa brandkii, wuxuu haystaa waxaa la dhahaa double take Sculpt and Strobe duo stick. marka waa kan saasuu eegyahay. so xaggan waxa weeyaan allah uu iga jabayba, laakiin wuxuu ahaa uu iga jabay. I think waxa weeyaan kuleylka aan ku hayo makeupkayga. okay, dhinacan uu jabay, laakiin waxa weeyaan highlighter weeyaan, and then dhinacanna waxa weeyaan bronzerkii, so contourkii. so contour baan imika in yar isticmaalayaa. so arkaysiinba in badan ma doonayna isticmaalo, just in yar. and then xaggan waan doonaynaa mariyo, iyo xaggan iyo sanka waan doonaynaa mariyo, and then foreheadkaygana waan marinayaa, laakiin waan igu soo noqon doon. waxaan doonayaa inaan xijaabka yar digo aan si fiican u blend gareeyo. eyebrowskana waan soo sameyn doonaa, marka waan igu soo noqon doonaa insha allah. okay, waa kaas eyebrowska waan soo sameeyey. I don't even know siduu egyihiin, laakiin they can do for now. and waxaan isticmaalayaa elf putty blush ayaa la dhahaa, waa elf blush, and waa liquid. so waxaan doonaya imika inaan dhameeyo all the liquid, and then powderka. so hadda u talana powder, waxaan marsanaynaa powder blusher. so kan waxaan jeclahay faraha inaan isticmaalo, only because farahina de waxa weyn very warm, marka oo kuleyl si fiican buu marka wajiga ugu soo baxayaa. aruna inaad si fiican arkaysiin. can't get enough. I love blush. aad baan u jeclay blushka. okay, imika waxaan isticmaalaynaa powderkii. to be honest, waxaan doonaya inaan laba powder maanta marsado, laakiin I think one baan isticmaalay. waxa weyn Kylie Jenner. so Kylie Jenner powder, setting powder. kan waa baking powderki marka. no, setting powder. yeah, Kylie Jenner setting powder weeyaan. waxaan kanaan isticmaalaya marka. and let's use this Morphe brush. waxaan doonaya inaan set gareeyo indhaha hoostiisa. markasaan dee conceal garanay, so ila daawada insha allah. TikTokna waan sameynaya videos, so let's just try and do it together.
waan jecel inaan dul mariyo eyebrowskayga only because then wuxuu noqonayaa very saliid ma ekaanayo. And then lastly afka ayaan saa u dul marinayaa. So waa kaas baan yar sugaynaa markaa. Waxaan doonaya iminka inaan isticmaalo blush, and blushkan waxa weeyaan XXRevolution, so irony baa la dhahaa. So waxa weeye very pigmented, very waxaan doonaya inaan saa yar yiraahdo gacantada ku yara masaxa, and then lightly saa u dul mariyo. So arkaysiinba very lightly ilaa iyo korka ayaan u qaadaya xaw concealer ku jiro, and then yar sanka yar dul mariyo. Waa ka absolutely stunning. Iminkan waxaan sameyn doonaa indhaha. So waxaan ku bilaabayaa bal eyeshadow. To be honest, eyeshadow neutral, like I don't want, ma doonay wax badan. Waxaan isticmaalayaa Anastasia Beverly Hills palette weeyaan. Oscar soo arkaysiin saasuu eegyahay, and bunigaas ayaan isticmaalayaa. Buniga xaggan in arkaysiin ma garanayo, waa arkaysiin ha. Bunigaas ayaan doonay markaa inaan bes ku layer gareeyo, ku blend gareeyo isha oo dhan. Ma doonay inaan too much sameeyo. So waa kaas waan markaa waan wadayaa on blend. So waa kaa blended, and inta kuxul madoona waan doonaya inaan marsada maanta. Also lasheskayga ayaan soo gashanaya. So lasheska aan xiranayo waxa weeyaan lasheskan magacaas ilo ayaa la dhahaa. Marka waan igu soo noqon doonaa lasheska iyo xamuuradaba waan soo marsan doonaa, and then waan igu soo noqon doonaa insha Allah. Okay, waa kaas eyelasheskii, inta kuxushii, and eyeshadowgiina waa marsaday. I think waana tusay markaan marsanayay. And lipstickii baan marsaday. Lipstick amaanta marsaday waxa weeyaan NYX, waa Drugstore Butter Glass, and in shadeku waxa weeyaan Madeline. And lip linerka aan marsadayna waxa weeyaan Morphe lip liner, and in Vibes inaan heli karo ma garanayo waa kan. So waa lip linerkan. Maxay kala marsaday? Waa kaas imika waxaan sameyn doonaa, waxaan isticmaalayaa spray labada maadana isticmaalo. So Morphe Continuous Setting Mist iyo Charlotte Tilbury Setting Spray. Waa kaas waxa weeyaan laba combo oo qurux isu soo baxa aad iyo aad runtii. spraygii u horeeyay marka waan yar suginaa. Sprayga labaad markaan isticmaalo waxaan doonayaa inaan highlighterna dul mariyo intuu yar qoyan yahay. Highlighterka aan maanta isticmaalay waxa weeyaan haddana brandkii UOMA. Way igu yar adag tahay brandka magaciisa. UOMA ayaa la dhahaa. Waxaan doonayaa inaan highlighterkan isticmaalo. So kan ayaan dul marinayaa. So waan yar sugnaa bal intuu yar noqonayo. And then waxaan isticmaalnaa airbrush flawless setting spray. Spraygana in badan buu maqnaa, marketka ka maqnaa, dad badan baa sugayay. And I think mardow baa la soo saaray oo la yiri is back in stock. Like waa amazing product. So kana markaa imika isticmaalaya. Waa ka. And waan soo qaadanaya markaa highlighterka. Waxaan doonayaa in yar oo highlighter. I don't know. I think waxaan doonayaa kan inaan isticmaalo. So arkaysiinba. And then dinaan. Waxaan doonayaa dee markasta inaan blend garaysid waa muhiim. You don't want inuu harsh ahaado. Highlighterka inuu harsh ahaado, so waa lagu celceliyaa. So back and forth. Siduu harsh line-ka u haysan. And then meelaha kale aad doonaysid inaad marisid, so sanka ayaan doonayaa inaan saa u mariyo. Yar. Then haddana xagga ma doonaa ku yar celiyo. So waa kaas oo arkaysiinba waan damiyay makeupkii. Waa kaas full face makeup. I hope inaad ka hesheen makeup lookan aan maanta sameeyay.
fadlan ha iloobin like-ka, subscribe-ka, comment-ka xagga comment-ka igu soo qora videoga aad doonaysiin next inaan sameeyo insha Allah. Waynoo videoga dambe aan sameeyo weeka dambe. Imika waan soo noqday insha Allah. Igala lahaada de intaa aan maqnaa waayo dad badan way ii subscribe gareeyeen, dad cusub kusoo dhawaada channelkayga. Social media iga follow gareeya TikTok, Instagram, Snapchat on ku wada jira. Linkida oo dan amaanta dee makeup kasta aan isticmaalana hoostaan igu soo qori doonaa sidaad u iibsatiin hadaad doonaysiin, iyo linkida social media-gaygana hoostaan igu soo qori doonaa. Fadlan saan yiri waa iga iloobina like, comment-ka iyo subscribe-ka. Waynoo weeka dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.